golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa go'aan ka soo saaray isdoorashadii ka dhacday Jubbaland 22 Agoosto iyagoo ku waafaqay wasaaradda arrimaha gudaha go'aankii ay ka qaadatay ee diidmada ahaa. golaha wasiiradu waxay ayideen go'aankii wasaaradda arrimaha gudaha ay soo saartay 22 Agost 2019 oo ay ku sheegtay in dawladda Soomaaliya u aragto dhammaan doorashooyinkii ka dhacay magaalada Kismaayo 22 iyo 23 Agost 2019 inaanay marin habraac dimuqraadi ah oo xor iyo xalaal ah natiijooyinkii ka soo baxayna ay yihiin waxba kama jiraan. haddaba doorashada Jubbaland waxay daboolka ka qaaday arrimo dhowr ah oo is saarnaa kuwaas oo khatar ku ah midnimada wadajirka dhuleed iyo midka badeed ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Kenya uu damac waalan ku jiro muddo dheerna u tafaxeedanaysay in ay boobto qayb ka mid ah biyaha Soomaaliya ayaa u aragta in ay afduub ku sameysay geedi socodkii doorashada Jubbaland iyo musharaxa ay wadato oo kaalin weyn ka qaadan kara sidii ay dawladda Soomaaliya ugu qasbi lahayd inay aqbasho in wada hadal lala galo Kenya oo ku aadan xuduudka badda ee dacwadeedu taalo maxkamadda cadaaladda adduunka. waxaan ummadda u sheegayaa ilaa hadda sortaagii dawladda Kenya ay keentay ee ahaa inaanay dacwaddaani maxkamadda dhageysan karin in ay laga gudbay oo dacwadda go'aamisay maxkamaddu in dacwaddaani ay awood u leedahay oo ay dhageysanayso. madaxda dawladda federaalka oo macangagnimo iyo madax adeeg badan ka muujiyay doonista Kenya muxuu mowqifkooda ka bedelayaa isbeddelka ay Kenya ka dhalisay Jubbaland mar haddii shakhsiyaad Soomaaliyeed oo qadiyadan wax ka difaaci lahaa ay galeen jeebka dawladda Kenya. maanta Kenya waxay naga mudan tahay inaanu dhinaana wad mahadsantihiin. maanta inta Nairobi joogto Soomaaliya aan garanayna in hal mar colaad intii la abuuray la yiraahdo Kenya iyo Soomaaliya waa jazaarnimo aan isleeyahay. haddaba waxaa isweydiin mudan sidee xeega lagu xigtaa ilkana ku nabad galaan. Axmed Madoobe waxa uu doonayaa in dhufeys uu ka dhigtay Kenya oo iyana doonaysa inay la wareegto dhul Soomaaliyeed. shabaab oo doonaya inay dhirta jiraan oo ay dhuxul ka dhigtaan iyo ciidanka Kenya oo iyana shirka ku ah badeecooyinka kontrabanka ee laga soo dejiyo dekedda Kismaayo iyo kuwa laga dhoofiyo. shabaab lacagta ugu badan waxay ka helaan dhuxusha la dhoofiyo oo laga dhoofiyo gobolada koonfureed. marka la dhoofinayo waxaa kor taagan askar Kenyaan ah. ana masawiran haynaa waxaan haynaa facts. baaritaano ay samaysay qaramada midoobay ayaa muujinaysa in dhir jaristu ay weli si xooliya ku socoto iyadoo laga dhoofinayo meelo ay ka mid tahay dekedda Kismaayo iyo xeebaha Ras Kamboni. qoladii xataa sanction committee-ga soo qoray oo dhahayo we have seen ayaga soo qoray report ay soo qoreen waxaan inaga sameynaa ma aha. leeyihiin Kenyans ayagoo joogo dhuxusha meesha laga dhoofinayo. marka waxay ii sheegtaa Kenya iyadoo ogolaatay in dhuxusha la dhoofiyo ay shabaab lacag ka samayso why ay shabaab u rabtaa inay ku darto 1267. waxaa hubaal ah in hadafka Kenya yahay inay hesho dhul Soomaaliyeed iyadoo u adeegsanaysa shakhsiyaad iyadoo kursiga ku ilaashanayso iyadoo ay ka go'an tahay in Jubbaland ay ka dhigto gobol si dadban u hoostaga amnigeedana ay ka ilaashato. It's the place where we should go and say we want a 48th county and that should be our 48th county. waxaan ku dari lahaa Jubbaland in laga dhigo countiga 48aad ee dalka Kenya maadaama hadda uu joogo nin taageersan rabitaankeena. The election in Jubbaland, let me just say this for everybody to hear. Kenya should hit back as Axmed Madoobe oo marar badan bedelay mowqifkiisa siyaasadeed laga soo bilaabo markii uu noqday amiir ku-xigeenkii ugu horeeyay Al-Shabaab waaligii jubbooyinka maxkamadihii Islaamiga madaxii ururka Xisbul Islaam ee Jubbada Hoose iyo ugu dambeyn madaxweynihii Jubbaland ee 8 sano ee la soo dhaafay ayaa ah mid damaciisu oo sal adag uusan lahayn cid kastana ay u adeegsan karto halka mowqifkeedu uu yahay una raali uga yahay inuu u shaqeeyo dana shisheeye. wadamada iyo ummadaha adduunka waxaa lagu burburiyaa gudaheeda laga burburiyaa. waxaa loo helaa dad ka soo horjeeda ama u shaqeeya ummada dibadeed u shaqeeya. inkastoo kiiska badda uu yaalo maxkamadda caalamiga ka doodistiisuna ay bilaabanayso 9 Sebtembar ee sanadkan sidee Axmed Maxamed Islaam qayb uga noqon karaa difaaca badda mar haddii uu shirka la yahay Kenya.
bini aadamka mucaarad waa noqon kartaa dowlad kasta mucaarada lagu noqon karaa waa la mucaadari karaa laakiin mucaaradka iyo muxaafidka wax ka dhexeeyaa jiro waxa naga wada dhexeeya waddan oo la yidhaahdo Soomaaliya oo leh territorial maxaa la yidhaha boundaries oo leh la aqoonsan yahay oo adduunka laga aqoonsan yahay can we just agree horta waddankaas inaan ilaashan karno xuquuqdiisa aan ilaashan karno sidee ayuu isu waafajin doonaa doonistiisa kursiga iyo damaca Kenya ee badda Soomaaliya sideese dowladda federaalka iyo beesha caalamka oo u diidan doorashadiisa oo isagu isdoortay ugu xalaaleyn karaan su'aalahaasi iyo kuwa la mid ah ayaa ka guuxaya maskaxda dadka Soomaaliyeed welina looma hayo jawaab ku filan balse waqtiga iyo waayaha ayaa sheegi doona halka uu saldhigto isku dayga Kenya iyo hunguri xumada ay ku rabto inay ku qaadato biyaha Soomaaliyeed